qolada runtii reer waqooyiga halkan dad badan baan isku aragnay ama Somaliland ama meeshaan ka soo jeedo runtii waxa ay qabaan in waalana waxaan arag caruurtayda 4 sano caruurtayda 2 goor oo ay Muqdisho ugu yimaadeen markay welina gurigoodii Hargeysa deegaan kama raran sabab aan uga rargarmay ana gurigooda dhulkooda sabab aan uga rargarmay ya waxaan garanaynaa sabab la igu diidan caruurtayda u tago sabab loo leeyahay gurigaaga ma galaysid wallahi ma garanayo waa yani bini aadanimada meeshii aqliga ugu dambeysay Soomaalidu waxaad moodayna yani ma gurigaaga inaan tago ayad intiisa oo ma caruurtayda loo nadiisa yani waxaan qabaa waxa laga yaabaa ayaan mid ay ugu berito qaar hore way soo noqdeen adoo soo noqdaan la arki doona waxaan isleeyahay waxa aan doonayaa waxaan ka hadlayaa wax cad haddaan anigu kari waayo macnaheedu maaha waxaas inay midmadu aan xalaal lahayn Soomaalinimo in la helo mida oo dawladda oo aan dalkii dadkeeda kala lahayn waa arin xalaal ah oo aan meel loo mugdi ka soo inaan ka hadlo mid baan iga dhici doonin ilaahayna aan ka yaabay inaan ugu imtixaamin ugu keenin inaan iraahdo taa cagsigeeda dadka Soomaalida la qaybi laakiin haddaan kari waayo inaan ka shaqeeyo oo aan ku guuleysto midnimada Soomaalida waxa qalbiga ku jiran doonayo taas dambigayga ma dambiga Soomaalidu maanta ilaa iyo 1960kii ayay qaran madax banaanahay waxaan isleeyahay maanta waa maalintii taariikhda Soomaaliyeed u adag dawladda ummadda Soomaalidu waxay waajahaysaa ama ay hor taagan tahay wadci iyo xaalad anigu shakhsiyan sida aan ku qanacsanay aanay taariikhda soo marin maxaan sidaa u leeyahay waxaan sidaa u leeyahay khatar kale oo weyn oo maanta qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay wajahayaan waxa ah hawiyadda ama identity-ga ummadda Soomaaliyeed oo isbedel weyn ku dhacay meeshay doonto ba joogto waxaan taa uga jeedaa waxaan ka fikiraa ama aad isweydiisaa 1940kii iyo 50kii qofka Soomaaliga ah ee reer baadiye ah ee geer raacatada ah haddii la yiraahdo Soomaalinimada halkii uu ka taagnaa iyo maanta dadkii wax bartay kuwii ilbaxay kuwii adduun maray Soomaalinimada meesha ka taagan yihiin ayaa u baahan in dood fiican laga galo waxaan qabaa in geeltirihii 40kii noolaa iyo 50kii noolaa ee aan iskuul gelin Soomaalinimada inay u ahayd wuxuu ku faano laakiin maanta taas way isbedeshay marka dawladnimo qiimo marka ummadnimo jirto ee qowmiyadi jirto ee qowmiyadaasi xoog leedahay ee ay jirto dawladnimo markaas jiraysa ilaa dawladnimo taas ku dhismayso imika haddaan qowmiyad Soomaalinimo jirin oo aan Soomaalinimo jirin dawladnimo Soomaaliyeed ma dhismayso waana meelaha runtii maanta dad badan oo aqoon leh oo siyaasad leh oo saameyn badan leh ka maqan ninka maalintii meeshuu doonaba ha joogo hadduu saylac joogo iyo hadduu reesaan gabooni joogo 50kii 40kii qofka reer baadiye ah hooyadu waxay lahayd Soomaalinimadu qiimo weyn bay lagu fadhiday oo ku ictisaas iyo sharaf ku dareemay laakiin maanta dadkii wax bartay iyo kuwii siyaasiyiinta iyo kuwii adduunyada maray ayaaba Soomaalinimada laga yaabaa ayaa kaga qiimo liidata runtii taasi ma fududa waa dhaawac gaadhay dawladnimo Soomaaliyeed dhaawac weyn oo gaadhay weyn maxaa dilay Soomaalinimadii maxay u dhimatay waxaan isleeyahay Soomaalinimadii waxay u dhimatay kow qabyaalad bay u dhimatay suurtagal ma aha ummad qabaa'il uqf kala fadhida oo u kala qaybsanay inay dawlad qiimo la yeelato xaraan bikatay wax suura galay ma yani laba institution oo aad u kala fog ama laba hay-adood oo aan isqaban karin oo isaqbali karin weeyaan oon cidina isqabalsiin karin qabaa'il iyo dawlad mid ah iyo qabaa'il kala duwan oo dawlad wadaagaya oo qabiilnimadu ay ka xoog badan tahay qoomiyadda iyo ummadnimada yaan been aynan isku maawelin wax suura galayna maaha wax suura geli doonana maaha wax inaga inoo socon doonana maaha
marka waa inay la kala doorto in qabaa'il la noqdo iyo in qaran la noqdo waa in qofka Soomaaliya kala doorto maanta wax kasta oo dadka isu ururinaya oo mid ka dhigaya waa khayr waana wax qiimo leh wax kasta oo ummadda kala qaybinaya oo kala saarsaarayana ama qabiil ha ku yimaadaan ama gobol ha ku yimaadaan ama degmooyin ha ku yimaadaan waa wax khalad weyn oo xun ra'yigaas waxaan u malaynayaa waxaan qirsanahay in lagu kala duwan yahay maanta Soomaalida dhexdeeda oo dad u qiiraysan iyo dad difaacaya ay jiraan oo cilmi ka dhigaya aqoon ka dhigaya dad diidana way jiraan oo anigu kamid ahay anigu golaha wasiiradan fadhiyo waan ka bareeraa waxaan ku raada taasi Soomaali dhaqmayso oo Ilaahay googi mana qarsanayo waxaan aaminsanahay inay ummadayda wanaagsan yihiin haddaan ogolaanayo Soomaali in gobol loo kala qaybiyo run baan idin sheegaya Soomaaliland ma iska joogi lahaa haddii Soomaali gobol loo kala qaybinayo oo la kala saarsaarayo mid Soomaaliland ka qiimo badan laga sameyn maayo run baan idin sheegaya wallahi taa ay Soomaaliland taagan tahay cid soo gaarsiin karaysa midna wayna jirto sidaa markay tahay lugooyo iyo caqli xumo yaani ummadda Soomaaliyeed ku daalin oo lagu daalinay hal la yiraahdo dhammaan miiska la soo saaro war dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed baa jira iyo dawlad Soomaaliyeed saddexda qodob hal la yiraahdo waxaan anigu maanta qaba markaa halka markaan ka tago dhibaatada Soomaalida hal dhibaato haysata oo aan mid labaad ayaa aabo oo ama hooyo oo dhibaatadaas waxa weeyaan dawladnimada qofka ummaddu maanta ummad bila dawlad noolan karaysa adduunyada ma jirto qof bini aadan oo soo foofaya oo aan dawlad lahayn adduunyadan maanta kama noolaanayo inaguna kuma noolan karayno inaguna waxaynu u baahanay dawladnimo dawladda Soomaaliyeedna waa ciidda Soomaalida iyo dadka Soomaalida war walaalayaal aan ku dadaalo inaynu midayno shalayba waynu midaynay iyadoo gumaystayaal kala haystaan shalay ma ahayn markii gumaystayaashu kala haysteen ee dadka reer baadiyahan ku sheegaya ay gilgisheen ay yiraahdeen Soomaalinimo waa mid oo ay yiraahdeen dawlad mida ay Soomaali u baahantay waxaan wareystay odayaashii dhaqanka ahaa ee wada hadalkii Soomaaliland xorriyadda ay ku qaadanaysay la galay Ingiriiska qaar kamid ah Ingiriis wuxuu nagu yiraahday 2 sano oo aan dalka idin dhiso oo aan meel sharaf leh idin kaga tago idinku 62 xorriyadda qaato 60 ka qaadanina waa diidnay ilaahay may waxaan rabnaa 1 July in xorriyadda naso 1960 in saas weeyaan waxa lagu kala noqday oo muddo badan lagu kala tagay maalinta xorriyadda la siinayo dhulka Ingiriiska haysta Soomaaliya oo ay odayaashii yiraahdeen waxaanu doonaynaa inaad noogu beegto ta koonfurta si aanan 2 maalmood kala noqon imika waxa yiraahdeen marka wuxuu soo istaagay marnaba anigu maalinta ka wajulay ku beegmay laakiin week koor baan siinay meesha doontan kala dhac dadkaas maxaad u malaynaysaa qiimaha laha ee sida laha ee laha mar rabo inaan 2 maalmood ku kala calaamadsanaano hal maalin in loo wada calaamadeyn rabna wixii dadku doonayeen way socdaan waxaan dadku doonayna ma socdaan waxaan leeyahay maanta Soomaalidu waxay u baahan tahay kacdoon caamo bay u baahan tahay kacdoon kaas oo ah kow in Soomaalinimo la soo ilaaliyo la soo nooleeyo Soomaalinimo hal la doono marka koowaad Soomaalinimadu qodobadan kale ha ku taagnaato wadaniyad halaato Soomaalinimadu haddana wadaniyad lahayn qabiil bay noqon kartaa wada qabiil bay noqon kartaa una anfac male laakiin wadaniyad ha ku jirto wadaniyadii Soomaalinimo ay ku jirto iyo midnimo ay ku jirto midnimo Soomaaliyeed Soomaalinimo wadaniyad iyo midnimo saddexdaas haddii lagu dari karo cadaalad dabeedna dawladnimo afartaa jaran jaraaba waxaan qabaa in la dhalin karo oo la raadin karo oo ay fududahay oo qof waliba dantiisa eego aniga dantayda ha eegin aniguna taada eegi maayo anigu taydaan eegaya taan eegaya waxa weeyaan tayda waxa weeyaan inaan adiga kula mid noqdaan isku jiro inaan wax wada yeelano oo laakiin cadaalad ayaa dad deeqda Soomaalida cadaalad darra qaabisay
waxa baabisay qabyaaladu ugu horeyso qabyaaladu waa dulmi sidii dulmi sagtay qabiilku dulmi ma laakiin qabyaaladu waa dulmi yani dulmigaas meesha uu taan Soomaali marinayo meel la sii eegan kara ma warnimayo waxay ku fiican tahay in si qiimo leh dadka Soomaalida loo sheego oo loola hadlo oo la yiraahdo war wixii aynu wax ku noqonaynaa waa inagoo mida waxaan doonayaa waxaan anigu dhibaato arkay in ka daayo waxaan doonayaa waxaan anigu jecelahay in carruurtayda la jecelahay in adiga carruurtaada la jecelaado taas Soomaalnimo ku imanaysa taas baana shalayto dadka qaar bay la tahay maanta inay taas suura galin war shalay suura gashay iyadoo tan laga aqoon liito oo laga dhaqaale liito oo laga ilbaxnimo liito ayay dadkii reer baadiyaha Soomaalidu ay hirgeliyeen Soomaalinimo iyo dawladnimo iyo midnimo intaba hirgeliyeen waxaan ka hadlayaa khiyaali ma waa wax shalay dhacay maanta oo dhici kara anu waxaan oran lahaa taah lagu dadaalo si aynu dawlad Soomaaliyeed u helo horta aan ka fikiro in ummad Soomaaliyeed la helo la raadiyo ummad Soomaaliyeed in la helo oo loo hawl galo oo qofka iyo aqoonta iyo garashadu ay taa keento oo bal aynu ku noqono sidaynu 40 iyo 60 ahayn aan ku dadaalo maalinta taas ay dhacdo oo lagu dadaalo oo la helo dawladnimo Soomaaliyeed waa khasab oo qiimayn timaado oo qurux badan Soomaaliyeed hal dawlad bay laakiin maanta imisa dawladood imisa madaxweyne imisa calan imisa baarlamaan imisa ciidan aynu kala leen maanta waxa jira matrin hatta tiradooda ma garanayo inta dawlad Soomaaliyeed ee calan leh ee baarlamaan leh ee ciidan leh ee xuduud leh ee adduunyada socota idinka tirin karaya taasi waa ala xisaab waxay ka go'an tahay qiimaha ummadda Soomaaliyeed iyo dawladeeda ay ka go'an tahay waxa la tumay durbaan la yiraahdo mar waxa la tumay durbaan la 4.5 oo bela maalinta dadkii tumayay haddii la yiraahdo war Soomaali 4.5 iyo 10.5 iyo 6.5 waxa doonto noqotay meena Soomaali una hayn Soomaali una Soomaha maxay qiimo leedahay marka in la yahay 4.5 maalintii dadkii fikradaha qabay lagama fujin kareen hadalna looguma sheegi kareen waxay u arkayeen oo markaad qiyaasto ay u arkeen inuu arkayeen haddii dadka loo ogolaado 4.5 in loo qaybiyo oo wax lagu kala qaybiyo in cadaalad dhacayso oo marka la is aaminayo oo marka ummadda cid walba ay dhibaatada ka bixi doonto laakiin ma ka baxday anigu markaan iraahdo cadaalad waxa imanaysa markaan reerkayga gaar noqdo oo aniga wax la siiyo reerkayguna muxuu noqon doonaa reerkayguna waa inuu reerasii noqdo reerkaygu waa inuu lafasii noqdo wali dhibaatadu way sii jirtaa dhibaato xali doonta ma aha haddana marxaata laga yahay iyadoo la isticmaalayay 20 sano wax ku dhow qabaa'ilka ama 4.5 ilaa imika cid walba qeelinaysa cadaalad lama hayo nidaam lama hayo wax la ilmayo laguma hakan waxa reer walba qeelinaya 4.5 kii afartii baylood ama shantii baylood mid walba hadaad maanta dhigeysto wax garadkeeda odayaasheeda iyo dadkii u dagaalamayay mid walba qeelinaya wuxuu leeyahay imika anigu waa dhibanahay iyadii baa qabiil walba isaga dhexdiisii si kala qeelinaya war qabiil hadii loo sii kala qaybiyo ummadda Soomaaliyeed 4.5 ma aha waa boqolaal qabiil weyn ay sii noqonaysa oo iska sii noqonaysa yani cid marka aqbalaysa oo runtii meel ku istaagaysa ma jirto marka dadkii moodayay in dawladnimo lagu gaaraya maanta waxay u baahan tahay inay runtii iyaguna si kale inay arkayaan iyaga laftoodii hadda mid kale oo ka khatar badan baa jirta waa ta aan anigu u socdo waa ta federalismka Soomaaliya aan ka xumay dad badan oo Soomaaliyeed oo qaba wax garadi inay joogaan ama ay maqlayaan ama ay dhageysanayaan laakiin maanta waxa la joogaa maalin cad Soomaalidu dhaqankeeda waxa la yiraahdaa ninkii reerkeena wax kala hadho qoodhay xaraadaba jabtay taa macnaheedu waxa weeyaan ra'yigaaga hadal sheeg berrina waa la noolan doonaa oo anigu adaan inta iyo hebel haduu dhintii hebel ay baxdo ummadda Soomaaliyeed way jiri doontaa waana la arki doonaa federalismku waxaan qabaa waa arinta aan u leeyahay taariikhda Soomaalida ma soo marin baan qabaa khatar kaga badan ummadnimada iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed waayo
كونيا سجال بقولي سيدتني أفرتي وقت اللي يجي يربى صومالي قيبسي أو قيبسي شن جوال 1884 برلين تاريخ داس markii ummadda Soomaaliyeed ay dawladda noqotay waxa loo aqoonsaday inay noqoto baal madow oo ku yaala taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxaana loo aqoonsaday inay noqoto dulmiyadii ugu waaweynaa ama dambiyadii ugu waaweynaa ee ummadda Soomaaliyeed uu gumaysiga qabsaday ka galay oo aan mid ka weyn la sheegin mid ka weyn lama sheegin inay Soomaaliya oo mida loo qaybiyay oo loo jarjaray 5 meelood waxay ahayd dambigii ugu weynaa ee ay ummadda Soomaaliyeed u haysatay dadkii qabsaday laakiin maanta yaa qaybinaya Soomaaliya Soomaalida qaybinaysa waxa weeyaan ma la jiifiyana banaanba la jiifiyana banaantii wadaadkii laga sheegay wixii qarnigii 19aad dabayaqadiisii Soomaalida dambi ku ahaa iyo dulmi laga galay maanta way ku yihiin ma danaynayno qofka ku sameynaya ka uu yahay inuu Soomaaliya inuu mid kale yahay ma aha dambigu waa dambi dulmigu waa dulmi cid sameynaysa kuma xidna waxaan si markhaati ka ahay anigu oo aan rumaysnahay qarnigii 19aad dabayaqadiisii sidii Yurub u qaybsay Soomaaliya ayaa cadaalad dhaanta sida maanta Soomaalidu ay u qaybinayso xasan sheeko Soomaaliyeed baa jirta carruurta looga sheekay oo tiraahdo islaam baa xaaba gurtay way qaadi kar weeyday markay qaadi kar weeyday ayay kamay gurine xaaba kale ku gurtay waxaan taa ugu maahmaahaya waxay la mid tahay ummadda Soomaalidu mashaakil baa ku dhacay xaq waxa ahaa oo sax ahaa inay raadiso wax ay dhibaatadeeda ku xalisho xal ku hesho waynu isku daynay Soomaalidu isku dayday say doonto baa isku daydo markay xalismi weeday ayaynu niri oo ay la mid tahay aan mashaakilaad kala abuuro kuwan Soomaaliya xalin kar waayeen waxaan haysto Soomaaliya xalin kar waayeen aan mashaakilaad cusub abuurano dabeetana aan kuwa ka hadalo waxaan uga jeedaa waqti yar ka hor intaan federalismka laga hadlayo la wadin tuulo kasta iyo gobol kasta iyo magaalo kasta oo Soomaaliya kamid ah laguma muransanayn meesha ay tahay cid leh iyo xagay raacsan tahay waxa la isku raacsanaa inay tahay magaalo Soomaaliyeed oo Soomaaliyan leedahay soo sida maaha laakiin fikirka federalismka lagu sheegaya markuu soo baxay waxa noqotay in la isku wada qabsado geed iyo ceel sidii berigi reer baadiya oo la yiraahdo ceelkan xaggan u ahaa iyo annaga iska lahayn waa ta imika aynu leenahay xaajigii gaalkacay ka hadlay gaalkacayo weligeed waa la yaqaan in magaalo Soomaaliyeed tahay oo dad Soomaaliyeedna leeyihiin waa la yaqaan maxaa cusub markaa waxa cusub fikirkan cusub la qaatay waxa uu abuuray oo ah xageed magaaladan raacaysa ma state-kayga mise taada waa state-kayga taada maaha taasoo qura maaha gaalkacayo qura maaha waa sida ay u badan tahay ba imika oo sida u badan tahay in la yiraahdo Soomaalidu iyadoo dagaalkii qabiilka ka xiisa dhacday oo dareentay dhibtiisa ayaa dagaal kale oo ka xun oo ah geedkayga iyo gobolkayga ayaa loo abuuray waana ka aynu ku wada indhalanay maanta siyaasiyiinta Soomaalidu siday u badan yihiin aqoonyahanka Soomaalidu sidoo u badan yahay waa ta maanta haddaad tiraahdo war waxan waa khalad waa ta burka madaxa burku dhacayo exactly waana dhab laakiin waxa fiican in cidii difaacaysana ay hadasho laakiin dadka Soomaaliyeed ee diidani ay yiraahdaan waxan dan Soomaaliyeed ma aha taariikh bay noqon doontaa waxaan isleeyahay waxa fudud oo sahlan in la yiraahdo dawladda Soomaaliyeed waxay ka dhisan tahay ummad Soomaaliyeed oo isku mid ah iyo dal Soomaaliyeed oo ay leeyihiin waa dal iyo dad leh oo uu ka dhaxeeyo oo aan u kala qoqobnayn oo aan u kala xariiqnayn oo aan u kala soconayn laakiin haddii la yiraahdo halka markaan aad uga hadlayo waxaan aad uga hadlayaa aniga laftaydu waxaan ka imi Soomaaliland waxaan u malaynayaa dambiga kala qaybinta inta ugu badan
in marka Soomaaliya wada hadlayso inaan anagu tuurta uridan noqon laakiin waxaanu leenahay hadda waxaan anigu leeyahay waxaan la yaabaa nin baa waxa la yidhi sheeko bugaagta ku qoray carruurta loo sheegi jiray ma aqaan marka mid baa waxa annaga liin la leedina mid baa qaras soo istaagay sheeko noocaas ah jirta anagu liin la leedina mid qaras soo istaagay waxaan uga jeedaa nuxur kuma jiro macnana kuma jiro aqoonina kuma jirto wallahi siyaasadina kuma jirto kuma jirto wax ka sahlanina ma jiraan in la yiraahdo waa dad Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed oo aan leeyahay oo aan shuraaka ku nahay waa cadaalad waa qurux waa wax fudud oo la sameyn karo Hargeysa ku noolow saylac tag markaan doonana Boosaasan dego markaan doonana aan dego Kismaayo meel ka shisaan degayo baar dheer aan dego the best waa wax fiican laakiin haddaynu siyaasad ka dhigano ku meeraaleysano halkan ma ahaan jirin halkan ma tiid waa qiimo beel waxaan qabaa aad baan uga xumay xataa xukuumadda aan ka mid ahay ra'yigeeda waan ku dadku ku kala duwan dad difaacaya jira nin baan ku wareere anigu Soomaaliland ma ka imi oo aan diiday 25 sano kadib aan idhi socon mayse dhulka Soomaaliyeed ka mid noqoto adiguna haddaad u ordaysaa wasiir adiguna haddaad u ordaysaa inagu golada fadhina inaad mid cusub abuurto samayso aniga ay warayso waxay qiimo leedahay ma jirto waxaan doonayaa inaan sidan Hargeysa iyo Burco ugu noolaan karo inaan ugu noolaan karo Kismaayo iyo Boosaaso iyo Gaalkacyo iyo meel kasta oo aan doono saasaan doonaya sidaasna aniga dantayda iyo sharaftayda ku jirta qof kasta oo Soomaaliyeed aan wax qabaa intaas sharaftayda ku jirto marka intaynu ku murmi lahayn aan dhulkeena qaybino oo aynu dadkeena kala qaybino miyaan ka fiicnayn inuu ahno war weyn ugu filan yahay naga dhaxay yaa dad degaba hay Soomaaliya dad degaba looma haye wax weeyaan yaan la inagu arkin oo la ogaanin meesha banaan oo la soo buuxinine war yaan ku qeylnina asaasan qabaan arrintaas runtii anigu waxaan u arkaa maanta dadka qaar si kale u arkaan laakiin waxaan isleeyahay waa arrinta aan leeyahay taariikhda ummadda Soomaalida waa dhibaatadii ugu weyneed ee soo wajahday waayo waxay noqon doontaa in geed la isugu dilo haddii wax kale noqon doonto waxay noqon doontaa in ummadda Soomaaliyeed dhaawacdo oo qaybso marka laga hadlayo dalka iyo wuxuu qiimo ku yeesho dawladuhu afka waa ka dawlad laakiin isku dawlad ma dawladuhu maxaan tusaale ugu bixiyaa waxaan ugu bixiyaa inkastoo idinku reer magaala tiin aan garanay tusaaleena anigu reer baadiyaan ahay dhaqan reer baadiyaan leeyahay bahalka haragga la yiraahdo soo ma taqaan wax laga saaro haragga ma garanaysaan haragu marka waa la iibiyaa soo maaha marka suuqa la geeyo laba loo kala saaraa midna waa waafi midna waa naqs baa af carabi weeyaan labadu waa waafi iyo naqs waafiga macnihiisu waxa weeyaan waa laga iibsanaya macnaheedu waxa weeyaan manfac buu leeyahay naqsku laakiin waxa weeye ma laga iibsan maayo haddii la doono marka qaarkood waxa lagu leeyahay wixii naqs cisho haddii laga iibsadana qiimo yar ayaa laga sanaya oo adeer waxa labadaba neef baa laga saaray labaduba waa harag maxay ku kala duwan yihiin waxaan is leeyahay dawladnimadu waa haraggaas oo kale dawladnimo naaqusina way jirtaa dawladnimo waafiyana way jirtaa dawladnimo naaqusa iyo dawladnimo waafiya labadu way jiraan yani dawlad manfac leh oo yani saas waxaan uga jeedaa maanta adduunyada waxa la waxa ka jira 194 dawladood calan leh ayaa ka jira 194 ka dawladood calan kale niman baa jira la yiraahdo darsa xidhiidhada caalamiga wax la yiraahdo darsa nimankaas waxay aaminsan yihiin expertkoodu 194 ka dawladood way inkirsan yihiin yani dawladnimo qiimo leh marka laga hadlayo 30 dawladood adduunyada ma gaarsiiyaan waxaan 30 dawladood ahayn ayaa markay analyze gareeyeen baadheen ee ay qodeen ayay yiraahdeen kuwaas qaramo iyo dawladda
wixii kale oo dhan waxay waa rabish iyo qashin waxay miday doonaan baa ku galaan mana ahay waxa weeyaan waxa la qiimeynaya oo la baaraya dawladnimada qiimaha leh waxay tahay insaanku wuxuu abuuran yahay inuu sharaf iyo karaamo yeesho qof bini aadan oo isagu raba inuu noqdo qof khariban yani taa doonayo u socdo ma jiro sidaas oo kale ummad ma jirto ka shaqaynaysa oo u sacinaysa inay dawlad qiimo daran oo liidata noqoto laakiin ummad walba waxay doonaysaa inay noqoto dawlad qiimo leh oo wax tarta inay noqoto doonaysa ummad walba saas ka fikiraysa mid wax dhigtaba haddaba waxa la yaab la Soomaalida dawladda qiimaheeda marka laga hadlayo laba arrin baa aasaas u ah haba la sii sharaxay waa dhulkeeda iyo dadkeeda oo su'aasha koowaad ee la weydiinayo xiriirada caalamiga marka laga hadlayo dawladda xiriir ka dhaxeeya dawladda dhulkeeda la eegaya dhulkaagu intuu la eegay marka su'aasha waraysa dhulkaaga sayskiisa intuu la eegay dhulkaagu ma qolkana dhulkaagu ma dhul dhaxa ma dhul weyn ba taas ayaa la eegay koow dhulkaagu markasta oo uu yaraado qiimaha dawladnimadaadu si dhacaya iyadan meel kala weegin markasta oo dhulkaagu sii weynaadana qiimaha qarankaasi uu sii xoogaysanaya sidaa daraadeed qolada xidhiidhada caalamiga dirsa waxay yiraahdeen waxa loo qaybinayaa dhowr category bay u qaybiyeen dhulka iyo qiimaha uu leeyahay waxay yiraahdeen dawlad kasta ama ummad kasta oo dhulkeedu gaaro 600 oo kun oo kilomitir oo square ah waxay u sharaxan tahay maalin maalmaha kamida inay soo barto ama ay timaado khilaafka dawladaha middle power ka yiraahdo dawladaha awoodda dhexe leh inay soo istaagto wixii ka hooseeyaan markaa way ka sii hooseynayaan dawlad kasta ama ummad kasta oo dhulkeedu gaaro milyan iyo 200 oo kilomitir oo square ah maalin maalmaha kamida waxay u sharaxan tahay inay super power club ku soo barto marka qiimaha dhulku saas uu leeyahay markasta oo dhulkaagu si yaraado sababta dhulkaagu uu waxay loo qiimeynaya marka koowaad dawladnimada marka laga fikirayo waxa laga fikirayaa amniga qarankaas amniga qaranka waxa loo jeedaa in la hadlo oo la taxo khataraha qarankaas u dumi karo u dhiman karo in koow iyo laba la yiraahdo dabeedna la ilaaliyo adduunyada dawlad kasta waxay ka baqaysaa inay maalin maalmaha kamid meesha ka baxdo waxa markaa laga digayaa amniga qaranka in lagu eego oo lagu sheego waxyaabaha khatarta ku noqon kara jiritaanka ummadaas ama dawladdaas waxa ugu daran amniga qaranka marka laga hadlayana waxa koow la soo qaadaya waa dhulkaaga intuu leeyahay iyo qaabku yaalo dhulkaagu hadduu yar yahay khatar bad ku jirta in habeen sidii Kuwait afka lagu gashado ama casar gaaban inta lagu galo maqribka lagu qabsado sidii Kuwait khatar bad ku jirta waayo amniga qaranka waxa qayb weyn ka dhulkaaga intuu leeyahay laakiin dhulkaagu hadduu weyn yahay suurtagal ma aha inta galab lagu soo gudo in casarka lagu qabsado suurtagal ma absolute suurtagal ma Soomaaliya imika marka la leeyahay waa 600 iyo 38 kun oo kilomitir square waa dhul weyn way adag tahay dawlado waaweyn intay soo galaan inay Soomaali qabsadaan hadday mid tahay oo dawlad qura tahay waa adkaanaysa waayo geed waliba 100 kun oo askari 50 kun oo askari ayuu baahanaya mana buuxin karo dawladdu haddii halkan laga qabsado sharqiga guuraysa hadday doontana bartamaha ay tegaysaa way survivaysaa marka dhulku muhiimadaas u leeyahay waxa haddaba Soomaaliya ka socda nin baa igu yiri qisadan aan doonayay ka waran raaliga hadda anoo ardayo thesis qoray ayaa nin baa igu yiri ninkii supervisor ah oo hindi siiqa oo kuma timaado waa ayaa maalintii aan dhameeyay doonayay tuu ha taginay soo mar xafiiskaygu soo mar xafiiskaygu soo mar timaanka soo xanoogo intaan la bala wuxuu su'aal baan ku doonayay ku weydiiyo ma taqaanaa khatarta ugu badan ama threat-ka ugu weyn ee qarannimo Soomaaliyeed oo qiimo leh hortaagan ma taqaanaa ma yabaan ku wuxuu ugu yiri isagaan fikirin wuxuu horta ugu siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan waan arko arrintaas waa ka daahanta uma bilowna laakiin wuxuu yiri khatarta ugu weyn ee dawladnimo ummadda Soomaaliyeed ay hesho oo qiimo leh dawladnimo yani qiimo leh daragii waafiga ayo kala waa qaybintii ay u qaybiyeen xuduudaha Yurub qarniga 19 yaqas waayo ummad isku mid ah oo dhul isku mid ah leh ayaa la qaybiyay saas uu marka waan iska dhaqaaqo waxaan ku wada mahadsantahay laakiin arrintii madaxayga ka bixi weyd
arrinta madaxayga bixiyay laakiin markii dambe waxay ugu soo degtay dhulku qiimaha uu leeyahay inuu weyn yahay inuu yar yahay Soomaaliya markay shanta dalka Soomaaliya ay dega ahayd waxay ku soo dhacaysaa qiyaasta ah aan ku sheegay milyan iyo 200 kilomitir square qayd dhulka gaadha maalin buu super power gaari doona malaa markaaba istiraatiijiyad hore ayaa jirtay oo la doonayay in dhulkaas uu noocaas oo kale u dhici doono in sidaa laga yareeyo hadda tii kale intii hadhay ayaa gudaha loo soo galay markaas la doonayaa reer walba in dawlad iyo calan iyo baarlamaan gaar loo sameeyo been miya taasi reer hebel waxaanu idiin sameynaynaa dawlad iyo calan iyo baarlamaan iyo ayaanu idiin sameynaynaa halka ay maraysaa iminka halkaasi maraysaa maxaa taa ka dambeeya taa waxaa ka dambeeya you are Somaliland you are Puntland you are Galmudug you are fulan dhulkaagu wuu yaraan doonaa dadkaaguna qabiil yar tabar yar buu noqon doonaa waxa dhici doonta laba arrimood way dhici doonaan tobanka geeday yar in marba madax la isu geliyo oo la xuduud ba isku haysaan iyo dhaqaalihii wadanka soo galaya qaybsan aad iga badsatay iyo kuraasta aad iga badsatay waxa in imtixaan cusub inuu bilaabmo waan hore u jireen taariikhda Soomaaliya ku jireen iyo in la yiraahdo adiga laguma jeeday waa dibigii cadaaya kii midoobaye kan cad horta in meesha laga saaro oo la yiraahdo adiga Somaliland caawa lagu qabsado oo leedin kuma jirtaan intiina kale oo la yiraahdo adiga meesha la yiraahdo maxay ahaydeen Jubaland adigu balaadu soo gaar mayso adiga dad kuguma socdo oo markaa miskiinkan kuraasta fadhiya kursiga fadhiya garbaar ruux ayaa yiraahdo inaga kuma jiro waa la sheegay waa tirayo waa murugo waa qiimo la'aan waxa la yaab leh dadka Soomaalidu markay maamuli kari waayeen qarankoodii qiimaha lahaa ayay doorteen inay waxan noocana inay door moodaan ayay noqotay yani dad maskaxdooda xaqii dambe u socto weeyaan taa halkaas kaga tagay waxaan kaga tagaya waxii Soomaalidu way noolaan doontaa maanta qof kasta oo damiir leh oo Soomaaliya oo nool meeshu doonaba jooga meeshu doonana jiray oo Soomaalinimo u daneynay u damqanaya ma aha dalkeena inaynu waxa uu ku xumaanayo waxa uu ku wanaagsanayo inaynu umad kale ka maqal waxaan kaga tagayaa federalismka waxa Soomaaliya ka socda ma federalism ba mise waa kala gogo federalismka aan bugaagta ku aragnay ma yahay mise waa wax kale ma aha ki bugaagta lagu sheegayay ma aha waxa la wadaa waa kala gogo yey dadka u dhuumanin waayo tusaalan siinaya adduunyada maanta federalismka waxa la yiraahdo inta la practice gareey aad bay yartay laakiin meelo tusaale noqon kara jira مثلا ده مريكان كلا وسوق كذا مريكان تصالون نقا قرية أمد فيدرال نقطي مريكان ونصنع كذا هرتا ميا ولي مقشين مدحونا عن أوباما هنا مريكان لي ميا مقشين ما بقشين هرتا ما ينام غل أو ضل بوقنا يا أو مضل هذا يا أسا يلي ميا مقشين ما يا سومالي ده هدي واحد فيدرالي هين طبعا كان مدحونا مدون ميال بوقنا مدون ميالو بحيو مدون ميالو صعود تمها فيدراليزم ومدة دولت بمتشو عد بمتشو وحي هوسي لقرتين سيبي لوفليا لكن تبن دولدو اسبربر سعوده iyo 10 wasiiroodo isbarbar socda ayaan dhawad ban Djibouti tagay udheel baan si ku dig udheel Djibouti ku yaalan isku dig markaasan magacayga markaan u sheegay uu yiri qofkii ayuu yiri miya lagu sii reservation lagu sii may baan ku dhigay wasiirka dekedaha iyo badaha xasan qoran uu soo saaray nin kale Soomaaliya ku qoran garanaysaa wiilkan waxaan ku uri isaga waxaan ku uri garan maayo laakiin waan garan maayo ku uri way waan fahmay runtii waan fahmay wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badaha nin kale oo Soomaaliya oo isaguna hudalka si buukan gareystay anigu ma si buukan gareysan laakiin markan ID-ga uu yiri oo mid si buukan gareystay ma san ku maayo waxa isu qaban way magaca ID-ga ugu waran iyo qofkan buukan ka sameystay suuri ninka hebel lama taqaana san ku ma maqaan laakiin waan garanaya
ما قرنا وزير قبل وزير كذا قاعد waxa socda waxa noocaas waxaan u jeedaa hadduu federalism wuxuu yahay federalismka adduunka inuu meel uun ka raaci lahayn u ekaan lahayn waxaad la yaabaysaa niman badan oo Soomaali oo dadka gobolada wareejinaya baan ayaan dhageystay nin baa wuxuu ku leeyahay kaas waxa weeyaan madaxweynuhu ku wareejinaya kala gobol wuxuu leeyahay kaas waa malafkii xiriirkii aan la lahayn in UN-ta iyo kii aan la lahayn AU-da iyo kii IGAD iyo kii international community-ga oo adeer haddaad ogoshahay inay meeshu maamul goboleed tahay dawlad ka tirsan tahay ya maxaa malafaadka maxaa ku keenay aad wareejinayso iyo waxaan qaad diyaaragtaada maxaa dhigay UN-ta maxaa ku keenay ma maamul dawlad kale ka tirsan oo UN-ta xidhalada malafaadkii wareejinaya la arkay waxaan u jeedaa حتى هدو فيدرال هان لها سيدان هو هذا لكن حتى ور فيدرال كأنه يهين كالبرت على بصدق ورورت وح فيدرال ما يهين ور أنا وحن لا وح فيدرال معها وح وحكله وح لا وحن وحكله فيدرال كما وحن لا يا هاي فيدرال كمركب بوقت كقرية هاي وإن سبب أي أمضى وجبها تو فيدرال أجرته لكن أمضى الصوماليات مركل لأيجو فيدراليزم سبب الله ليه سبب لوجو أديو له دنتي كوشت القرن ماي ميدوبكم مكر دونا دلاشكم مكر دونا تاريخكم مكر دونا wax ala wax ku kala duwan lama soo sheegi karo haddaan la soo sheegi karin waa in sabab lagu kala duwan yahay oo ay xalinayso federalism weyn jirto laakiin waa iska jeclaaday federalismka waana doonay in qolo madax u noqdo ama gobol madax u noqdo marka waa in federalism la noqdaa taas aqli ma aha way ka fogtay waa in sabab loo raaca la sheego la sababtan ugu baahnaa wax inaan u baahnayn inaynu qaadano ma adduunyada waxa la yiraahdaa marka dawladaha la baarayo xiriirka caalamiga ayaan ku arkay dawladda ugu qiimaha badan Japan baa lagu sheegaa inay tahay oo tusaale loo soo qaato waayo haddii Japan aan eegay sababta loo oranayo waa dawladda ummadda koowaad ee qaran qiimo la dhisan karta Soomaalida wallahi inay mulku kala duwaneen Soomaalida ka fiican masle waayo waxa leeyahay dadka Japan waa race qura waa yani cid kale ku dhex jirta ma jirto dad madow iyo qaar kale meel kale ka soo galay ma jiraan waa Japan waa qofku waa Japanese cid kale oo race kale ma jirto oo different race ma jiraan meesha waxa kale oo jirta waa dad diin qura aaminsan yani wax qura aaminsan yihiin aqoon qura leeyihiin oo aan ku qaybsanayn oo boqorka iyo waxay doonto baan oo halkaas xulina waxay leeyihiin taariikh mida oo taariikh ay ku kala duwan yihiin laba qolo Japan ay kala haystaan oo leeyahay anaga taariikhdiisa saasay ma jirto sidaas la leeyahay waxay noqonayaan dawlad ugu qiimaha badan noqon karaya waayo dawladnimada factories ay ka dhismayso waxa qiimo gelinaya ummadda ay ku dhisan tahay sida ay tuwalo iyo midabka ay leedahay waxa la yaab leh waxaan ku arkay opposite-ka waxa adduunka waa Malaysia yani waxa ku jira 62 qowmiyadood oo register oo kala taariikha oo kala raysa oo kala midaba oo kala nooca oo kala diina dad badan warka waxay qorayaan Malaysia meesha la yiraahdo inay marnaba dawladnimo qiimo la noqonayn laakiin waxa la yaab leh marka Soomaaliya markaad eegto waxay raacaysaa groupka Japan ayaanay meel kaga duwanayn meel alle meel kaga duwantaan la saaray haddii Japan la federaal laga dhigo marka maxay noqonaysaa dawladnimada lagu sheegay Malaysia oo aan arkay tanaaqudaadka iyo farqiga u dhaxeeya ee runtii daciifin karaya dawladnimadooda ayaa maanta noqotay dawlad qiimo leh oo ay dadkooda xaawileen oo ay ku guuleysteen inay maamulaan ama ay manage gareeyaan farqiga dadkooda u dhaxeeya laakiin ummadan aan wax alaali u dhaxeeyaba jirin markii la isku wadi kari waayay oo sababta la isugu wadi kari waayayna ay tahay fashil ku dhacay hoggaankoodii iyo siyaasiyiintoodii markay siyaasiyiinta markay ku fashilmay dadkii hoggaamiyeen midka ayaanu qaybino taasi xal ku imanaya war haddii midnimadii ku iman weyday qaybinteedana ku iman maysaa ku dal